والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan u maleynayaa warka maanta dhacay war aad iyo aad ugu cusub Soomaaliyeed dhaqankeedu weeye sida muuqato waxa weeye waa inqilaab siyaasi ah waa inqilaab lagu soo talagalay waliba weji fool xun oo aad moodo inuu reereysan yahay ka muuqato waa ayaan daro inay labadii oday u waaweynaa isku soo raacaan xiriir aftuubno waa madaxweynaha iyo gudoomiyaha guursi gudoomiyaha guursi maalintii uu ka yimid Ingiriiska ayaa nimay saaxiib yihiinoo annaanu saaxiibnahay ayaan gurigiisa ugu tagnaa wuxuu taagnaa heer uu leeyahay waa xaaraan saldhig la bixiyaa maanta waa ka tan yeelay aqoontaan u leeyahay waan filayay salaamaanu taa yeelo waa aqoontaan u leeyahay salaamaanu waa dhaqankan lagu yaqaanay boormaan noga joognaa berigii boorma sheekeer baan ku darayaa ayaanu qoladii cala casri oran jiray baanu hayn waxaanu arrimaka baxay iyaynu sharaxana meesha geenaynaa salaamaan markaa uu yidhi hungureynayay structure si waxbaa la yidhi soo sameeya shirka waxa ku biirinaysaan structure iyo waxbaan soo samayn salaamaan baanu shirka geeyo tag oo shirka ka sheeg salaamantii iska dhaafay tii duduubay ayuun boqoliyo odayaal iyaga meesha joogay waxay yidhahdeen raacay salaamaanoo maxaa dhacay baanu nidhi hal ku dhagu noqday ayuu yidhi wuxuu yidhi ma structure baa toli noqonaya maantana waxa weeye yaa ma dastuur baa toli noqonaya weeye waxaan leeyahay waa ayaan darro ka soo celiya waa ka soo celin kartaan maanta odayaashii baa tihiin ka soo celiya waxaanse leeyahay waar waynu ognahay oo ummaddani qoorqabad kuma cabbi doonto qoorqabadna kuma dhici doonto sida la maagan yahayna walle inaanay dhici doonin ummadda waa ogeydeen halkay u martay maantana waxaa ku keedaan oo ku wadaan inaynu mar dambe isqabsanno ka soo celiya weli waanu ka codsanayna inaad ka soo celisaan waa ka soo celin kartaan haddaadse ku adkaysataan waxaa ka dhiftaa baa leedi dadka waxaan leeyahay weliba dhallinyarta waxaan leeyahay waa mustaqbalkiinnii waxaanu isugu baaqi doonnaa inaan arrintaba halka ku joogsan mayso waanu isarki doonnaa dadku waa inu isu yimaadaa tashadaa shir weyn la isugu yimaadaa hadday moodayeen qolada ina fadal iyo ciidankiisani inay ku hanjabi doonaan askarta qay ciidanka ay wataan fadalow waad ka maqnaysanay kii maxamed siyaad barre ka xoog weynaa mid walba maxamed siyaad barre waxaa la isku dirina waxay ahayd xeerka dalka ku dhiqi maayo iyo xeerka dalka aan wada yeelanayo iyaga wada yeelan mayno maantana waxa weeyaan wada yeelan mayno walle haddaan laga noqon darajada laga lixido si hor loo garaacay in laga yaacay walle in laga yaacay haddii laga noqon waayo waar aan ku soo celino tolnimadii waar aan ku soo celino wada tashigii waar aan ku soo celino walaaltinimadii waa roo iyo hoo baynu isodhan jirnay tii way soo dhaaftay laaluush bay martay laaluushkii way soo dhaaftay maanta xabad bay maraysaa ma jeclin inay dhacdo xabade laakiin taad guddoomisay salaabaanoo maanta waa xabad markii kugu horreysay maaha waa markii afraad bay noqonaysaa u malaynaya dowladdii cabdiraxmaan tuur wasiirka daakhiligaad ahayd adii qoray garabka gashaday riyaale cigaal wasiirkiisii maaliyaddaad ahayd adii qoray garabka gashaday riyaale gudoomiyihiisii guurtaad ahayd oo uu ku dhisay adiga adoo aynigaasa maanta inaad taa guddoomisa may ahayn alala inaanay ahayn salbaano waxaan ku odhan lahaa inaad mar damba ka soo celiso halkaa oo talada dalka xeerkii ku soo celiso oo dastuurkii ku soo celiso oo baarlamaankii oo madax bannaan shaqaadu kubaliyada halkaa ka fadhiisato markay soo gooyaan xeerka baarlamaanku haddii looba hadalku soo mariyo oo guridu ku raacdo laakiin fadhigaasi ma aha salaamaan oo ka soo celiya oday baa tahay guurtidii baa tahay halkii loo eeran lahaa baa tahay ka daabaan noqonayn maanta haddaad si ka dayn weydo khaatimo xumaanta taa ku darto waxaad ka dheeftay leedahay nabadgelyo